بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن إذن أهمتي مداوضيال كسو دوادا جنال كينا قحليسك ورالكا وهذا هايو كلا دوغا براتين إناد كداوتان ورالكي ودن بيه عالمكا قضباد عاد ورالكي يكو داوان دونتان وحا كامدا وزير كمالية حكومة فدرالكي الصومالية وجبوتي كولا كولمي سفير كروشكا وفدية الصومالية dowladda Soomaaliya oo ku eedeysay dhigeeda Kenya inay faragelin siyaasadeed ku hayso gudaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo ciidamo cusub u dirtay degmada Diisoor ee gobolka Bakool dibadbaxyo looga soo horjeedo dagaal beeleedyo ka socda Jubbada Hoose oo ka dhacay magaalada Kismaayo iyo qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto degmo waaxeedyada ismaamulka Gaarisa oo ka hadlay hadalkii ka soo yeeray madaxa shaqaaleysiinta iyo adeega macallimiinta ee TSC intaasi waa qodobada warkayaga ugu door karoon haatanna waxaad ku diyaar garowdaan kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay faragelinta siyaasadeed iyo midda amni ee ay dowladda Kenya ka wado gudaha Soomaaliya taasoo aan u wanaagsaneyn xiriirka labada dal iyo shacabka walaalaha ee dariska ah iyo xal u helidda mushkiladaha gobolka ee ay ka mid tahay la dagaalanka waxa ay ugu yeereen argagixisada oo ay ula jeedaan xarakada shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku jooga magaca AMISOM iyo Midowga Afrika ay sameynayaan faragelin qaawan oo siyaasadeed iyo qalqalgelin dhanka amniga ee gudaha Soomaaliya sida ay qabaan xeerarka caalamiga oo ay ku jiraan kuwa golaha amniga iyo Midowga Afrika ee AMISOM ee ciidamada AMISOM ku joogaan dalka Soomaaliya waa in ay dowladda Kenya u adeegsan ciidamadeeda ku jooga Soomaaliya magaca dalada AMISOM faragelin arrimaha siyaasadeed dhanka kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti kula kulmay safiirka dowladda Ruushka u fadhiya Soomaaliya oo ay ka wada hadleen arrimaha dinacafinta Soomaaliya waxaan maanta la kulmay safiirka dowladda Ruushka ee Soomaaliya oo aan ka wada hadalnay arrimaha dinacafinta Soomaaliya ayuu yiri wasiir Bayle oo la hadlay warbaahinta qorshaha dinacafinta Soomaaliya ayaa hadda meel wanaagsan maraysa waxaana ay xukuumadda martay wada kasta oo sahli karta deynta loo haysto Soomaaliya iyo sidii lagu cafin lahaa Ruushka waa dalka labaad ee dinacafinta ugu badan nagu leh wada hadalkeena waxa uu ku saleysnaa sidii ay deemahaasi nooga cafin lahaayeen ayuu yiri wasiirku hadalkiisa sii wata ciidamo dheeraad oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay maanta gaaraan qaybo ka mid ah gobolka Gedo ciidamo ay horey ugu dirtay dowladda Soomaaliya gobolka Gedo ayaa la wareegay gacan ku haynta degmooyinka Balad Xaawo iyo Doolow oo ay ku xooganayeen ciidamo daacad u ah wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ay baadigoob ku jirto dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii uu ka baxsaday xabsi uu ku xirnaa oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka saraakiisha ciidamada ayaa la sheegay in dowladdu ay mas'uul ka tahay sugidda amniga deegaanada ay la wareegeen ee ka tirsan gobolka Gedo oo istaga maamulka Jubbaland ee uu hoggaanka u hayo Axmed Maxamed Islaam Madoobe dowladda federaalka ayaa dadaal ugu jirta sidii gobolka Gedo oo dhan ula wareegi lahayd isla markaana ka goyn lahayd maamulka Jubbaland waxaana ay horey u jirtay eedeymo loo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la xiriira in faragelin qaawan ay ku hayso nabadgelyada deegaanada Jubbaland dhanka kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo hor leh ka dejisay degmada Diisoor ee gobolka Bakool kuwaasoo laga qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ciidamadan maanta ay dowladda federaalka ee Soomaaliya geysay degmada Diisoor ayaa si rasmi ah loo cadeyn ujeedada laga leeyahay iyo waxa ay halkaasi ka qaban doonaan ha yeeshee dadka falanqeeya siyaasadda dalka ayaa saadaalinaya inay qayb ka yihiin kuwa dowladda ay geysay gobolka Gedo maadaama Diisoor 90 kilomitir ay u jirta caasimadda maamulka Jubbaland ee Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe dhanka kale magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyo nabadeed oo looga soo horjeedo dagaal beeleedyo ka socda duleedka magaalada Kismaayo kaasoo u dhaxeeya laba beelood oo daaq wadaag ah dibadbaxyaashan ayaa socod dheer ku maray wadada weyn ee halbowlaha u ah Kismaayo iyagoona sitay boorar ay ku xardhay yihiin dooni mayno dagaal sokeeye
qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay mudaharaadka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xilligan aan loo baahnayn dagaal sokeeye isla markaana aan la ogoleen in dhiig uu xilligan daato reer Jubbaland way ka daaleen inay dagaalamaan way ka daaleen inuu wiil dhinto way ka daaleen in muxuu ahaayay dhiig cusub uu nagu daato waan ka daalnay wiilashaanada yaryarka ah ee dhalinyarada ah ee muddadii dheereed ka soo haray dhibaatadii iyo xuquuqdii in maanta la isu adeegsado aad iyo aad baan uga xunnahay run ahaantii ilin bay naga keentay waxaana leenahay hal la joojiyo dagaalka hal la joojiyo wiil kuma dhasho inaan la qaybsano walaaleen dhibaatada la qaybsano waxaan leeyahay joojiya dagaalka waxaan leeyahay xabadda joojiya colaadda joojiya wiilashayaan cidlo lagu laaynin gabdhaha awranka dhexgala dhex istaaga orda hore u socda in badan baan dagaal ku soo jirnay hadda waan ka baxnay meel fiican bay maraysaa yaanan dib u noqonin yaanan dib loo noqonin wasalaamu calaykum waraxmatullaah baaqaa nabadeed oon u jeedinayno beelaha walaalaha ee Soomaaliyeed isku dilaayo waqooyiga magaalada Kismaayo ayaan baaq u diraynaa inay dagaalka joojiyaan waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa inay naga aqbalaan intaana ummad muslimiina Soomaaliyeed ee saaka isxil qaantay ujeedkoodu yahay inuu dagaalka istaago Ilaahay ducadiina iyo dibkaada martay Ilaahay ka aqbalo qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto degmo waaxeedyada ismaamulka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa ka hadlay hadal ka soo yeeray madaxa shaqaaleysiinta iyo adeega macallimiinta ee TSC ka oo bartiisa Twitter-ka ku soo daabacay hadal xanaf leh taasoo ay ka xanaaqeen mas'uuliyiinta ismaamulka Gaarisa in maanta lagu magacaabo macallimiinta deegaanka naga joogto waxaad ka imaataan dal shisheeye oo imaateen Kenya arinta aad bay noo xanuunsan waxaan ogolaan karnaa maaha dalka marti kuma nihin cid ogama cabsanayno idaaradda tacliinta ee wadanka Kenya Nancy Macharia maanta annaga dibkana haysto islaanta lagu furtay waa Nancy Macharia anaga Kenyaan baan nahay Kenya meel ogama joogno xaqqa Kenyaanka joogo daaf kasta Mombasa joogo Nairobi joogo Kisumu joogo xaqqa uu leeyahay aan leen in macallimiintanadi ma aragtay hal loogu yeero mid loogu yeero oo telefoon loo waan haynaa macallimiin telefoon loo soo diray leeyahay ma maxaad ka haysaa ka soo taga waan dhaleecaynayna mid ugu sareysana ku dhaleecayna luqadda ugu sareysa ee lagu hadlayaa qof gafay baan kula hadlaynaa iskuulaadka anaga wax la siin markii 20 macallin baa Gaarisa County oo la siin markii Kisumu oo kale 200 oo macallin la siinay markii Mombasa oo kale 300 oo macallin la siinay wixii sida ay ahayd bay haddana inta yareeday joogeen yay haddana naga kaxaynaysaa taa awgeed anaga waxaan kaliya iimaan ku yeelan karnaa oo TSC iimaankanaga uu ku soo noqon kara Nancy oo meesha laga qaad in maanta lagu magacaabo macallimiinta deegaanka naga joogto waxaad ka imaataan dal shisheeye oo imaateen Kenya arinta aad bay noo xanuunsan waxaan ogolaan karnaa maaha dalka marti kuma nihin cid ogama cabsanayno cid kama bariin waxaan leenahay naagta lagu magacaabo Nancy Macharia waxaan leenahay xafiiska inay joogto ma astaayisho isku dir bay samaysay waxay samaysay nirtakor dad bay la dagaalantay waxbarashada iyo mustaqbalka deegaanka u soo kacday waana naag aan isleenahay meel dheer bay dawada ku haysaa cid walba oo garab siinaysana waxaan leenahay waan kula soconaa toos baan ku shidayna waxaan kale u baaqi wasiirka waxbarashada dalka Kenya Professor Magoha inuu asagana yahay nin naco qabo Soomaali community inuu yahay nin nacab bulshada Soomaalida dalka waqooyi bar ku dhaqan ana ka bariyay jirtaanka naga waxaan leenahay dalka annaga xaq baan ku leenahay waxbarashaan ku leenahay caafimaad baan ku leenahay qof walba oo Kenyaan xaq u leeyahay ku leenahay ilmaha Kiambu jooga ka Kisumu jooga xaq leeyahay ma leenahay waa in ay caruurtana helaan xaq ay u baahan yihiin waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka Kenya in uu codkanaga dhageysto sida ugu dhaqsi badan arrintan kaga jawaabo aanan mar damar u dul qaadan karin in Nancy Macharia nagu tumato guud ahaan war wixii daafaca caalamkii naga soo gaaray oo aad kala socoteen channelkeena Gaxliiska wararka haatan waa naga intaa warka waxaad la socodsiinayaan anigoo Axmed Laqaaya tan intayna hawada dib ugu kulmi doono nabadgelyo.